ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa soo afjaray weerar ay kooxda Al-Shabaab ay galinkii dambe ee maanta ay ku qaadeen hoteelka Ileed ee ku yaala xeebta Lido ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir xilligaas ay ku sugnaayeen dad shicib ah oo u yimid Nasiino inta la xaqiijiyay ciidamada ammaanka ayaa soo badbaadiyay 205 ruux oo uu ka mid yahay milkiilihii hoteelka waxaana ku geeriyooday 11 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen 13 kale waxaana sidoo kale halkaasi lagu dilay 5 ruux ee ka midka ahaa dableydii weerarka ku soo qaaday hotel Ileed afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya gaashaanle Sidiiq Aadan Cali oo saxaafadda kula hadlay halka uu qaraxu ka dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyeelada uu geystay qaraxaasi qarax ay qolyaha argagixisada ahaa u soo abaabuleen galabtay 5 iyo 9 daqiiqo ama 12 iyo 9 daqiiqo ayaa qarax ismiidaaminaha oo loo isticmaalay gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa iyo argagixiso isla markaasna rabtay inay qasaare geysiiso dad shacab ah oo ku jiray hoteelka Iliad ee ku yaala degmada Cabdicasiis qaraxa markuu u dhacay argagixisadu gudaha ayay u galeen hoteelka waxa meesha ku dhintay qasaare dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa 16 qof 11 qof oo shacab ah iyo 5 ka mid ah nafti halagayaasha ugu tala galay inay naftooda iyo nafta shacabka Soomaaliyeed gumaadaan sidaas oo kale waxa meesha ka dhacay dhaawac gaarsiiyay ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhawaa dadkaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalihii hoteelka iyo dad shacab ah oo goobta ka agmariyay iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha qasaarahaas ka gaarsiiyaan saas oo kale waxaa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hoteelka iyo gawaaridii dadka shacabka ah oo jidka ka agdhawaa agaarka mariyay howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10kii fiidnimo sababta uu nolol dheeraadana waxay ahayd in aan yareyno isla markaana aan ka taxadarno inuusan qasaaruhu intaas dhaafin oo qasaaro badan meesha uusan keenin gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tunuc ayaa uga tacsiiyay dadka shacabka ah ee ku geeriyooday waxaana ciidamada ku ammaanay geesinimada ay muujiyeen iyo gurmadka u fudiyeen dadka shacabka ee uu qaraxaasi haleelay aad baan rabnaa anoo ku hadlaya ka gobol Banaadir ahaan annaga iyo maamulka gobolka inaan uga mahad celino ciidanka sida wanaagsan oo markiiba ay uga jawaabeen gurmadka degdegga oo shacabka ay u fidiyeen argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalado adag soo maray u soo dhabar adeegay xaalado intaan ka adag waxaan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay inay yaraayeen weeraro noocan oo kale inay fuliyaan ciidanku mar walba kuwa intaan ka badanna waa badbaadiyaan